garowe. haween Soomaaliyeed oo xaalada caafimaad darro ugu dhintay deegaanka Saxdheer ayaa waxa ka hadlay haweenka ku dhaqan deegaankaasi Saxdheer. wariyaha Somali Channel uga soo warama halkaasi Cabdikariin Olol ayaa warbixintan halka inooga soo diray. Saxdheer waxay ku taallaa gobolka Sool. Ascaanood waxay u jirtaa 70 kiiloomitir. hooyooyin halkaasi ku dhaqan oo la hadlayay saxaafadda ayaa sheegay in dhibaato weyn oo xagga nolosha ay la soo diristay oo dhanka caafimaadka ah. toddobaadkan gudihiisa ayaa halkaasi waxaa ku dhintay 3 hooyo oo xaalado nolol xumo oo caafimaad darro aawadeed ay ugu dhinteen. haween aanu kula kulannay goob MCH u eg balse aan lahayn waxyaabo fara badan oo qofka bini'aadanka lagu badbaadiyo ayaa haween tiro yar oo iyagu halkaasi xilli aan booqanayay aan kula kulmay ayaa waxay TV-ga caalamiga Somali Channel uga warameen iyo waxyaabaha ugu daran ee haatan ay ka hadlayaan. magaaladani waa magaalo dad reer miyi u badan waxayna leedahay deegaan aad u ballaaran. haweenkan ayaa waxay sheegeen inay si weyn uga xun yihiin caafimaad darrada iyo hoy la'aanta haysata maadaama maalin kasta ay haweenku u dhimanayaan dhiigbax iyo dawo la'aan. mid ka mid ah haweenkaasi ayaa waxay tirisay 3 haweeney ugu dambeeyay halkaas ku geeriyooday oo midda ugu yar ay haysatay 5 carruur. sababahaas awgood dadka ku dhintay waxa keenay dhakhtarka oo naga dayacan, dhulka oo iska maxaan ku sheegaa dhul iska aan waxba ka jirin. halkan waa health boski deegaanka. health boska wax kale oo bir dhaweytoon yar ay noo keentay hay'adan ururkan iskooda la yiraahdo oo noo bilaabay oo xoogaa yar oo qalabayna iyo xoogaa yar oo daawo ay noo keeneen mooyaane wax hormaanan haysan. wax lagu qaadabeeyo oo kale uusan lahayn, wuxuusan lahayn meel wax loo dhigo uusan lahayn, qof xanuunsanay meel la dhigo uusan lahayn. maxaan ku sheegaa wuxuusan lahayn birkad biyo looga cabo uusan lahayn, wuxuusan lahayn wax daryeela oo caafimaad waxa ka jira inta yare hadeer iskooda noo bilowday oo hadeer yana ay milaa 2 bilood ay ahayd. gabdhaha shaqeeyaan xitaa inta dadka shaqeeyaan ay kulligood volunteer ku shaqeynayaan. hadeer laga joogo 12 cisho 3 maalmood gudahood baa 3 gabdhood ku dhinteen, 2 isku maalin dhimateen. sababta keentay dhiigbax baan u tirinaynaa. waanu dayacanahay, waxaanu ka dayacanahay xagga daawada, xagga dhiska, xagga iminka qofkii dumar ah iyadoo tabcaana la keeno sariir lagu jiifiyo male, kuraasi lagu fadhiista male. inta yar 2 bilood Ilaahay noogu tabarucay dadka khayrku noogu tabarucay indhahaanu ku kala qaadnay 100%. marka waxaanu rajaynaynaa in idinkuna kuwa khayr qabo wax noo soo kordhiya aad noqotaan oo barakaysan oo aad la kaashataan wixii Ilaahay uu idin sakhiro oo dhanba. marka mahad iyo shukri baanu u naqaynaa kuwii hore wax noo qabtay iyo idinkaba. deerna dhawaantii 2 bilood meelahaas ahay dhaqaaq yarna loogu sameeyay oo suulig iyo dayacnaa oo bursanaa iyo qalab yar iyo gabadh kalkaalisa caafimaadna loogu keenay oo waliba aan mushahar lahayn. intaasaanu intii 2 bilood haynaa waxaba yaraatee barkad iyo suuliga maxay ay tahay iyo laydh iyo daarado iyo wax la yiraahdo mushahar iyo sariiro qofkii ama umula ama dhiig baxa ama la wiisataynayo lagu baaro midna ma lihin. wax daawo oo hadeerto aan sheego oo aan ka jibinta iyo wax la mid ahayn oo daawo wax qabad oo noo yaalaan ma jiraan. marka hay'adaha caafimaadka iyo dadka danaynaya dadweynaha waxa aan u sheegayaa oo aan ka codsanaynaa waxaan joognaa meesha tuulada ee rafka ah ee sida odayaasha hore sheegeen ka fog gobolka ka fog oo gaadiidkeedu uusan gaadiid israacsan had iyo jeer jooga ahayn oo dadku dad awoodiisu gaaban tahay oo gaari kiraysan kara aanay ahayn oo dadku reer baadiye uu badan yahay oo tulgasan qof laga soo sheegayo oo loodhanayo kaas ku umulo ku dhiig baxay ama tog eela gooba laga soo sheegaya ama galboob baa laga soo sheegaya. inta la isla hadlayo oo gaari iyo shidaal iyo wax la diiday waa dhintay. marka ka bacdi meedkii in la soo qaado laaso ama halka lagu aasa ama halka bay noqonaysaa. Saxdheer waxaa jira dhib aad iyo aad u fara badan xagga haweenka iyo carruurta. waxaan codsanayaa in hay'adaha iyo maxaan ku idhaahdaa dadka meesha u dhashay ay keenaan ayna soo caawiyaan. hadeer waxaa noogu daran dumarka dhalmada u dhimanaya. hadda isbuucan gudihiisa waxaa baxay 3 gabdhood. carruurtana lamaba soo tiro koobi karo 4 iyo 5 way ka badan yihiin. isbuucan gudihiisa waxa weeye gabdhaha magacyadooda hadda baxay waxa la yiraahdaa Nasteexa Xirsi Cabdi, Canab Nuur Xamari iyo Xayaad Jaamac Saleebaan. 3 gabdhood waa isbuucan gudihiisa waa umul raaceen, way dhiig baxeen, wax kaalma ama haystaan, wax tubarcaada ma haysano, wax naga caawiyana ma haysano.
meel cidla baan joognaa waxaa weeye oo tuulo yara meel wax noogama yimaadaan caruurta waa sidaasi lamida hadeer kan aan xambaarsanahay waxaa ku dhacday jadeeco uurka ayay ugu noqotay aad iyo aad buu u dhibaataysan yahay malaha wax daawo ah wax maxaan ku idhaahdaa qufacan waxaan kaga daweeyay ma hayo cuntadii ma cuni karayo waxa weeye aad iyo aad baa dhibaato nooga haysataa marka waxaanu doonaynaa hay'adaha samafalka iyo dadkii u dhashay meesha tan in ay naga soo caawiyaan والسلام عليكم ورحمة الله. تدمشة إلهي بقى وطلع على قفل وقت يسول منيا. محن شجع صار سنة دي أمرها أما ليقبح أم الدولان أما محن شجع عاف ما ضر. وحوي عم كامل لكم مهلو وملسوي يمكن وحنا وش قيان دولان. واحد يقبح ويدك شوشنا عن ملك لأن ما شتو ميج هذا يتهدي مقالة هيدا. كاسي لا تيجي تقفك وحكا قبنا وحنو بانين وحنا غبط. وملصد والله هاي. كهوينك درنا نوعي كبير. waa awal sheeko walwal weeye maxaan sheegay laba dumar oo isku maalin u mulay ama saddex maalin isku maalin u mulay oo baxay malakumoodku de waa meeshiisa laakiin dayacun dhibaataysan xagga dawalaan dayac dawalaan baa jirta ya gabdhaha ma taqaan haa waan aqaanin gabdhaha de shan qof bay ka tagtay gabadh ugu horeysay kalena 8 bay ka tasoo labada gabdhood isku maalin baa la soo dhig wax bay u dhinteen kalena waxa weeye waa calooshii ku sidii kameytigin waxba kameytigin haweenka waxaan ugu baaqanaa inay naga soo caawiyaan xagga dawada matalan xagga maxaan sheegay wixii hooyadu ku imaan lahayd haday meeshu ay noqoto xarun caafimaad oo fiican hooyada waa la keenaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun arrin waxay noqotay aad magaaladii iyo nawaaxigeedii iyo deegaankii aad u naxdin gelisay oo aad waxyeello badan ama naxdin badan ilaahay baa sababay ilaahay baa keenay laakiinse waxyaabo badan oo naxdin la keenay 30 daqiiqo u dhaxaysay labadoodiiba maalintaas la wada aasay one day hal saac hal daqiiqo hal maalin baa la wada aasay gabadha labaadna gabadh bay ahayd dhalinyaro ah oo iyadu reer leh uur leh iyaduna waxyaabaha 90% sababay ay dhiig la'aan iyaduna u dhimatay iyaduna maalin bay kala dambeeyeen markaas iyaduna saddex ay ku tahay marka waa saddexdii qof hadeerta deegaanka saaxdheer ugu dambeeyay xabaalaha ku aasan waana hadeer ayna dul taaganahay ilaahay u naxariisto Abdikariin Nolol Soomaaliya Channel magaalada Las